Marwaan islaamay ina fiicantiin barajeynaya aad wanaagsantihiin. Waxaa la yidhi nin boqor ah ayaa waddan buu xukumayay. Ninkaa boqorkaa markaa wuxuu samayn jiray habeen walba gabadh buu guursan jiray, subaxiina wuu dili jiray. Ninkii markii uu marayay dhowr aduu dee lama koobi karo hablihii magaalkaba uu dhameeyey ee midii caawa loo aroosay berri uu dilay haddana uu dilay ee de magaaladii ay yaaban tahay cid u diidi karta gabadhna aanay jirin. Nin walibana uu deynantiisi siinayay la waa cabsanayaa oo waxa weeyaan ka u shaqaynaya inantiisu guursanaya oo ka magaalada waxa weeyaan wasiirka ka inantiisu guursanaya oo de cid kastuu ka awood sarreeyo hablahoodii askaxu ka dhigay horta. Ninkaas waa dhameeyey. Waxa dhacday markaa nin ka mid ah shaqaalihiisa ayaa gabadh u dhalay ayaa ku tiri aabow hee waxaan diyaar u ahay ninkan boqorkaa ee hablaha laynaya inaan guursado. Odaygu uu argagaxay ugu yaaba aaba mid waalan tahay mayna ku dilaa doonaysaa miyad maxaa kaasi aaba ma wadkaagii baad raadsanaysaa ilaahay baa kaa indhasaabayo wax weeyaan kolley way nagu soo socdaaya aabo adigu wadka haysaga soo horreyni. Odayga inantiisii tala kasta wuu siiyey si kasta wuu la hadlay way ka diiday. Marka waxaa tiri may abo ninka isaga ah waan guursanayaa way iga go'an tahay ee adigu intaad u tagto waxaad ku tiraahdaa inantaydii ayaan ku siinayaa. Odaygii wuu fajacay dee mana doonayo inantiisu inay dhimato. Hadalkeediina waa kanoo waxay tiri aabo haddii adigu xataa isiininda ninka anaa dooranaya aabahay weydiiso ila waad ka baqaysaayo hadhowna waad isiinaysaa kolliba. Odaygu wuu cararo ninkii buu tegay wuxuu ku yiri niyow dee inanteedaasaan ku siinaya. Boqorkii de isagu waxba kama galinoo dee iyadu dee dumarka kale waxba ugama duwanaa wuxuu rabaa inuu subaxaba dilo habeenkiina uu guursado lamana yaqaan hablaha wuxuu ku dilaya ninkaas. Inantii ninkii waa guursaday waa loo aroosay. Habeenkii markii la gaadhay caqliga iyo maskaxda la isku dhaafay moogta maskaxdan iyo caqligan iyo garaadkan waa la isku dhaafay haddaanad intaa haysanin waxbay haadkaa ku cunaya. Inantii ninkii waxay samaysay sheekay u bilowday sheeko aad u macaan bay u bilowday. Sheekadii markay u bilowday u waday markii halkii ugu macaanid marinaysay bay ku tiri xaaji inta hadhayna haddiiba aan nolol igu dayso oo aan noolaado waxaan kaaga sheekaynayaa habeen dambe. Sheekadii isaga xiisay la yeelatay waxa weeyaan sheeko macaan bay ahayd haya buu ku yidhi. Subaxii baa lasoo kacay waxaa la arkay dee boqorkiiyo gabadhii wax weeyaan ay nooshahay. Tuuladii iyo dadkii oo dhan baa isweydiiyey siday ku dhici kartaa caqli galmeed tahay sokii hablaa kala dili jiray maxay ku akhriday. Adiga waa la fajacay waa la isweydiiyey xantaa badatay waxaan ku yiri gurxankaa batay. Odayga aabaheeda waa yaabay waxa weeyaan dee cajaayib bay noqotay. Habeenkii baa la gaadhay sheekadii bay u dhamaysay haddana sheekadii markay dhamaysay may joojina mid kale macaan bay u bilowday. Tiina bartanka halkii ugu wanaagsanaa markii marinaysay ayay tiri waynooya habeen dambe haddiiba aan noolaadada dayso weeyaan wey haddaad daysadee waaya sidii oo kale haddana sidii oo kale adigu sidii bay ku waday inanta sidii bay hooyo ku noqotay carruura ku dhashay. Boqorka waxa weeyaan carruurtiisa ay hooyo ugu noqotay. Ummaddii tacajab bay isugu soo baxday. Maalinkii dambe hadii muddo laga soo wareegay sanada laga soo wareegay carruur u dhashay intaabana ay sheeko ku waday ayay tiri niyow waxa weeyaan sheekadii iyada ahayd waan dhamaystira waa dhamaatay sheekadii ma hayaan wad wax sheeka. Okay haddaad idilaysay haddaad daynaysaba boqorkii markaa tallaabo muu qaadin muu dilin gabadhii wuu daayey faruu ka qaaday gabadh dambe uu guursadana ma dilin wax weeyaan sidii
ay xaaladii dee ku degtay. markaasi waxa la isweydiiyey boqorka waxaan bedelay muxuu yahay. inantaa la weydiiyey wax lagu yidhi maxaa waxay tiri dee habeen walba sheekuun baan uga sheekayn jiro, sheekadaasun baan dee haddana odhan jiray habeen dama haynoo noqoto. haddaba boqorka isaga ah maxaa bedelaad isleedahay? qofku marka duqaadka barto, u samirka barto, tanaasulka uu barto, wax weeyaan isbeddel weyn ayaa noloshiisa ku imanaysa. boqorku marka boqor bilaa dulqaad uu ahaa, boqor aan naxariis lahayn buu ahaa, dee waa kan inan kasta uu soo guursada dilaye. laakiin sheekooyinka ay habeen walba inta u qabato sheeko uga sheekayso kadibna ay haddana sug u lahayd, xataa wux bartay waxa sugitaanka la dhaho waa samirka. samirkiibuu bartay, samirkiibuu bartay, dulqaadkiibuu bartay. maxay ahayd wax weeyaan ninkii isbeddel weyn ay gabadha iyada ah ee caqliga badan leh ay ku samaysay. boqorkii sidiibu isku beddelay, sidiibu wax weeyaan xaaladiisa ku degtay, sidiibaydana marigo ugu ahayd, ubad fara badan ugu dhashay, waxbay xaaladihii ku degeen. gabadh caqli badan oo maskax u saaxiib ah oo garaad u saaxiib ah, wax kasta way beddeli kartaa. nin kasta oo xun oo laga cararo oo wax weeyaan laga fiigo oo la idhaahdo hebel waa nin xun, gabadh wanaagsan oo caqli badan hadduu gacanta ku dhigo 90% ama 100% wuu isbeddelayaa. na baranayaa wax weeyaan noloshiisa isbeddel buu ku samaynayaa. samirkuu baranayaa, dulqaadkuu baranayaa, sugitaankuu baranayaa, naxariis buu yeelanayaa. wax weeyaan bini aadamku isma beddelo ama qof hebel dabeecaddaas uu dhashay weligii isbeddeli maayo haddaad maqasho waa been. qof kasta qof baa beddela, qof kasta oo adag gabadh baan waxaweye furfurta, mid kasta oo nacasa gabadh baa fariid ka dhigta, mid kasta oo wax weeyaan adigu gabadhun baa ka dambaysa oo ta la idhaahdo waxa weeyaan nin kasta oo meer gaadhay samee, nin kasta oo horumar gaadhay gabadh baa ka dambaysa. ku darso oo nin kastoo nolosha ka dhacana gabadh baa ka dambaysa. ilan is ammaani mayna keligiye, nin kasta oo nolosha ka dhaca haddaa aragtaan oo waxa weeyaan shaar jecjadsan sita oo waxa weeyaan nolosha aan ku faraxsanayn, mas baa guriga ugu jirta, naag xun baa guriga ugu jirta. laakiin ninka fariidka ah, ninka xaragada badan, ninka bashaashka ah, ninka qosolka badan, guriga geesiyad baa u joogta, farxad badan, farxad siisa, waxa weeye wax kasta ugu dulqaadata, tanaasul u tanaasusha. dee noloshana wax weeyaan isu dulqaadasho iyo isu tanaasul iyo kala dambayn weeyaan. haddaan intaasi jirina wax hagaagayaaba ma jiraan, adduunkan baabaan jireenba haddaan intaasi jirin. marka waxaa leeyahay bal ha lagu dadaalo dhanka kala dambaynta iyo ismaqalka iyo tanaasulka iyo xaaladahaas oo dhan. aad baan idiin salaamayaa, inaad fiican tihiin. taa sheekooyinka aad ka heshaanna habeen walba xabad baan insha allah inoo soo gudbin doonaa. waa mahadsantihiin.